السلام عليكم صاحب يال سو dhawaada aan leeyahay meel boodnida daafadka joogtaan kulanti wacan wanaagsan fadlan muuqaalka like saara si fiidiyogeena saaxiibo wanaagsan u gaara sida adigoo kala saaxiibada nagu cusbana waxaan leeyahay soo dhawaada oo channelka subscribe dhaa gambaleelka furta saa u noqotaan saaxiibada sida joogta inoogu xiran maanta waa maalin sabti ah wararka ugu dambeeyay wargeysada kubadda cagta ka faalooda waxay qoreen ayaan dul istaagi doonaa aan ku horeyno horta Nicky ahaa saxiixi ee Liverpool ee la soo wareegtay magaciisa dib ma laha waxba yaa la ka sin laakiin saxiidiganeetoy waa 22 jir Liverpool xalay ayay dhameystirtay waa 22 jir 68 gool u dhaliyay laba boos buu ka dheeli karaa dhax wala weerar uu ka dheeli karaa marka de Liverpool waa ay idin mashquulisay fafaaniyaashii idin ku mashquulisay dhaxdiina ka dhalatay macnaa ma fahamteen saxiixana la keenay faano la faray kama qodno Jordan Klopp wili wuxuu taagan yahay waxba ay dhiman qorshaha Klopp waxa lagu leeyahay qof walba Liverpool fan ay wax maskaxdiisa ka guuxay wax ka weyn maskaxda Klopp ka guuxayo waxa lagu leeyahay wuxuu damacsan yahay in dubo oo suuqa ka doonto damacsan yahay oo dhaxda Liverpool Arnold lagu soo kordhiyo damacsan yahay lagu leeyahay xidigan haduu Liverpool ku soo biiray shaxda Liverpool xil ciyaareedkan noo bilaabanay sidii isku bedeli doontaa harta Liverpool weerarkeeda tiradu ka badan yahay nuucil raba lagu soo safaa Gogba lagu keenaa waxa lagu keenaa Jota Junior lagu keenaa Nunes lagu keenaa Mohamed Salah lama taabtaan waaye waxaan ku irisaas weerarka cindigay ka yihiin Liverpool difaacadana waaba sidii aad ogeedeen waa Enders waa Alisson Becker Van Dijk iyo Matip de Gea isla istaagayo hadii duba la keen waa Robertson iyo Arnold ku istaagayo dhaxda waa marka sheekada meel ay ka taagay ana hal mid aan ku sheegay hadda halka mid aan ku sheegay way xitaay Liverpool qad dhaxyaala tiriya ilaa ma ani xitay hadda dil igeeyo Fabinho bas dhalo qadka dhexe Liverpool kama maaranta waa master juk iyo jangalaf waa master xaasnimo waa master shafto waa McAllister saxiixan cusub hadda la keenay iyo Fabinho aniga saas ayaa u qaatay shaxda Liverpool inay noqon doonto Alcantara in uu backup noqon doono kursiga kaadka lagu iloobi doono ee ila tahay wixii ra'yigiin reer Liverpool iyo dhamaan saaxiibada ugu cusub nagu xiran nala wadaago oo nala shaxda Liverpool nala sameeyo weerarka Liverpool nuucir waa lagu soo safaa nuuc alaale iyo nuuc arta lagu keenaa taas waxa aragtida afkoor waa geen kartaa lama taabka waa Mohamed Salah Gogba geen kartaa Darwin Nunes geen kartaa waxa aragtida geen kartaa halkaas ay ugu gudbeen kooxda kubadda cagta Liverpool hadii aan u gudo galno saaxiibayaal maanta oo kale 6 sano ka hor waxa ku soo biiray Manchester City Anderson Marias iyo Magic Bernardo Silva maxaa ku xasuustaa labadan xidig ee tayada wanaagsan waxaan ku xasuustaa triple-kii taariikhda galay saddex leydii waalida ahayd xil ciyaareedka Man City ee ku soo guuleysatay ayaan ku xasuustaa labadan xidig alla Anderson Marias maxaa wax badan indhaha kaga candhuufay ama maxaa wax badan eedeeyay laakiin markii dambe hero isku bedelay adduunka ilaa kubadda markii goosha horteed lagu baabaasto wadnaha ani iguma yaalo bug oo isakay dhaha alcamuun maanta waa maalintii ay ku soo biireen Manchester City labada Magic hadee reer Man City oo halidin arko Man City wax ka cusub suuqeeda ma lahan shib kooxaha suuqa ku jiro loogu kala kicina meesha neetoy Arsenal warkay soo wada ibabiga weyn waxa lagu leeyahay taageerayaasha Arsenal ee adduunka dacafaheeda ku nool halka arin ay ka toogayaan maamulka Arsenal ee Mikel Arteta wax kale ma ahan hal dalab bis ay weydiisanayaan Arsenal Please no keena Osimhen waryahanka Napoli uga dheelo striker-ka hanoogula soo daro Gabriel Jesus iyo Nketiah nuguma filnay taagin Arsenal hanoogula soo biiriyo ama safkeena lagu soo xoojiyo Osimhen xidigan oo ay aad u raadinaysay Manchester United xitaa aad u raadinayeen Arsenal warkeeda halka soo marooya saxiixyada suuqa iibsiga saas u kala kacsiin Aston Villa xitaa saxiix ayay dhameystirtay yarkii u dheelaayay Leicester City oo Belgiumska ahaa Aston Villa ayaa qaadatay Chelsea saxiixeeda cusub ayadana waa ay soo bandhigtay Chelsea maxaa fafaanayaasha loogu sheegay fafaanayaasha Chelsea wixii loogu sheegay yaa halkan iigu soo cadeey karo xidig kala marto fafaano leh ku keenaysa Manchester United maxaa ka cusub mar wahadiye in the house Manchester United waa la nadiifinaa waa la kala hufinaa waa la kala haadinaa waxa laga soo reebaa dad talent leh bisa laga soo reebaa fake host Sebastian Harry Maguire حتى midka striker-ka ugu dheelo oo Martial waxaan ku ilaahay Van de Beek waxaan ku dhahay 7 ciyaaryahan ayaa boorsooyinkooda Old Trafford ka qaadanaya oo waa la kala nadiifin doonaa la iskuma hoos gambanayo xataa saanjihii 70 milyan lagu soo gaday Borussia Dortmund
waxaa leeyahay dacaskaaga ka jaqaafi meeshaan wax aa ku qabatay xilli ciyaareedka lasoo dhaafay ma jirto ayaa leeyahay manchester way fasaxaysaa ciyaaryahanadan ciyaaryahano kale ayaa soo socdo waa arki doonaa man united wixii ay la timaado war kooxdaada inaad nadiifisid waxay kugu xiran tahay xilli ciyaareedka oo kuu noqonaa waa la iska kala hufiya waa la iska kala haadiyaa halkaasoo ugu gudbeynaa manchester united maadaama ciyaaryahano ay fasaxayso ciyaaryahanana ay keensanayso waxaan rabnaa barcelona in aan u gudi galno saaxiibada qiimaha badan oo igu xirano barcelona waxaa lagu leeyahay shiidkii intuu ka batay ani barcelona taageeraa horta mida idin sheega qof walbo saaxiibayaal oo footballka ka hadlo ama daawado ama Facebook ku qoro ama YouTube ama TikTok dad waxaa jiro oo gob aan ahayn jirto taageernimadooda qarsado qof walbo waxa ku sheega footballka daawado ama YouTube u leh ama Facebook u leh ama TikTok leh koox buu taageeraa dadka marka dadna taageernimadooda way qarsadaan dadna taageernimadooda banaanka keensadaan aniga waxa ku jira dadka taageernimadooda banaanka keenan ku jira laakiin se taageernimadeyda in aan banaanka keenay macnaha uguma dhigays in xaqiiqda aan qariyo macnahayga meesha ku socdo waa in aad dareentaa macnaha Barcelona fan ayaan ahaa aniga laakiin se Barcelona si wax u wado si aan ii cajibisay ma ahan because Barcelona waxay iibinaysaa shid meel oo ka gaaray waxay iibinaysaa telefishinkii Barca magac waa laga bedelay Camp Nou war hadaa maanta 100,000 oo subscribe hadaa i gaarsiisiin anoo marwahani Camp Nou xaflad oo soo dhiga karnaa Camp Nou xaflad oo soo dhiga karnaa 100,000 oo subscribe hadaa i gaarsiisiin macna Barcelona mar ay inta Spotify noogu soo xayeysiiso mar naag fanaanada ay noogu soo xayeysiiso mar ay nin noogu soo xayeysiiso hadda waxay maraysaa hantidii ayada ee milkiiliyada oo u leed in ay xaraashto in ay garoonkeedii xaflad lagu dhigto waxaas waa wax laga yaqyaqsoodo waa macna waa wax ceeb ah laakiin Barcelona waxay taagantaa nin baahan gob ma ahan taaganta mideeda kale Champions League xitaa waxa la laga ganaaxayaa oo qaladaada lagu qabtay laakiin se warar ka soo baxay maanta wargeyska Mundo Deportivo oo ka dhisan wadanka Isbaanishka waxa la qaladaadkii Barcelona waa lagu waayay xil ciyaareedka soo socdan Champions League-da waa ay ka qayb gali doontaa marka de shiidku isku manacee baqtina loo waa baahanahay baqtiga loo mucunay busti boorka la iska jafaayo xayya la iska dhigaa Barca naga dhaaf abal aqoomuluudnimo kugu dul qaadanayna oo maalintii iida aan ugu soo qorteen balaayaal isdubeena inini naaga saa isku ay laba ishuminayso iloogadiina waxa soo saarteen wallahi Real Madrid faara noqonada mar damba noo keentin loogu isku waxay hay wax isku wacina wala dhiiga maalaadin Real Madrid waxay ku soo qortay mutaqadan beedkeeda kullu caam wa antum bil qayd madridista ee soo dhahay adig teelaadiin wallahi soo dhaaday wala kala tagay shiiqo orodna ma aha suuqa waa furan yahay hal is adkeeyo Man City saddex jeer oo Premier League qaada way daalan tahay cajiradii balaq noqdeen horyaalkan Premier League mar Liverpool qaadi doonto ma Arsenal qaadi doonto ma United qaadi doonto ma Newcastle qaadi doonto ma Manchester City naftirkeeda qaadi doonto qaybta committee ugu soo wadaaga welcome to home Anfield ku soo dhawow saxiix cusub ee Liverpool magaceeb male ciyaaryahanka taydiisa la fiiriyaa laba boos oo ku dheeli kara bye